بسم الله الرحمن الرحيم أنا وقتك إن عن بخاميس كدية وحن سلام يا دمان مدحض قرن كي ددوينا هل كان جوجا أو مدحوينا جمهورية والرئيو أنت أسكدبنا إن شاء الله تعالى ورمتيت كيان دين آخرنا يا بسم الله الرحمن الرحيم شركة قلها وذاتشجع قرن كأرمها دورشوينكا تضبي الله تنك بشمي لبكون يكوبي لباتن ورمتيت shir madaxeed ay isugu yimaadeen madaxda golaha wada tashiga qaranka oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayna ka soo qayb galeen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Jubbaland Axmed Sheekh Maxamed Islaam madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Filish shirka ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho socdayna 22kii ilaa 26kii bisha May 2021 golaha wada tashiga qaranka ayaa si qoto dheer uga dooday xal u helista caqabadaha fulinta heshiiskii 17kii Sebtembar 2020 ee hanaanka qabsoomidda doorashada hay'adaha dastuuriga ah ee federaalka Soomaaliya golaha ayaa sidoo kale dib u eegis ku sameeyay soo jeedinta guddiga farsamo ee Baydhabo 16 February 2021 si ay u meel mariyaan qodobada farsamo ee soo jeedinta guddiga oo ka koobnaa 1 tubta xalinta cabashada la xiriirta guddiyada maamulka doorashooyinka ee labada heer 2 xal u helidda guddiga maamulka doorashada Somaliland 3 hanaanka xalinta khilaafka gobolka Gedo 4 hirgelinta qoondada haweenka 5 jadwalka qabsoomidda doorashada golaha ayaa sidoo kale ka wada hadlay qodobo ay u arkeen inay muhiim u yihiin qabsoomidda doorashada oo ay ka mid yihiin amniga guud ee dalka kan doorashooyinka iyo qariidada dhamaystirka dhismaha dawladnimada Soomaaliya haddaba golaha wada tashiga qaranka iyagoo tixgelinaya baahida loo qabo in doorashada hay'adaha federaalka ee Soomaaliya ay ku qabsoonto muddo cayiman kuna dhacda si nabad ah wadar olgol ah dalkana u horseeda xasilooni siyaasadeed waxay dood iyo falanqeyn dheer kadib go'aamiyeen qodobada soo socda 1 tubta xalinta khilaafka guddiyada maamulka doorashooyinka goluhu wuxuu go'aamiyay iyada oo la tixraacayo soo jeedintii guddiga farsamo ee Baydhabo in xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo soo gudbiyo xubnaha guddiyada maamulka doorashada ee labada heer ee cabashadu ka jirto muddo 3 maalmood gudahood ah si loo bedelo waqtigu wuxuu ka bilaabanayaa marka ay madaxda wada tashiga qaranku saxiixaan heshiiskan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya marka ay soo gaarto xogta xubnaha cabashada laga qabo uuna xaqiijiyo cadeymaha xogtaas wuxuu u gudbinayaa ciddii soo magacawday si loo keeno beddelkeeda loona faafiyo muddo 2 maalmood gudahood ah guddiyadu waxa iska dhex dooranayaan guddoonkooda marka ay soo dhammaystirmaan qodobka 2 xalinta khilaafka guddiyada maamulka doorashada Somaliland golaha wada tashiga qaranku wuxuu go'aamiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa mas'uul ka ah habsami u socodka doorashooyinka kuraasta Somaliland isaga oo ka tala qaadanaya ama la tashanaya gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka gudoomiyaha Cabdi Xaashi ayaa soo magacaabaya 4 xubnood oo ka mid ah guddiyada maamulka doorashada ee kuraasta Somaliland seat hal xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee FIT iyo hal xubin oo ah guddiga khilaafaadka qodobka 3 hanaanka xalinta khilaafka gobolka Gedo shirka ayaa si qoto dheer u falanqeeyay ugana dooday xaaladda gobolka Gedo ee dhinacyada siyaasadda iyo amniga madaxda golaha wada tashiga qaranka ayaa xeeriyay soo jeedinta guddiga farsamada ee Baydhabo 16 Febraayo 2021 ee tubta xalinta khilaafka siyaasadeed iyo amni ee gobolka Gedo guud ahaan iyo sidii ay doorashadu uga qabsoomi lahayd magaalada Garbaharey haddaba goluhu wuxuu go'aamiyay golaha wada tashiga qaranka waxa ay ugu baaqayaan bulshada gobolka Gedo in laga shaqeeyo nabadda midnimada iyo wadajirka bulsho iyo tan maamul ee Jubbaland
ba golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyey in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka Gedo si ay habsami ugu dhacdo doorashada gobolka Gedo. golaha wadatashiga qaranka wuxuu go'aamiyey abuuridda guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo aysan ku jirin Jubbaland si waafaqsan soo jeedintii guddiga farsamada ee Baydhabo. guddigu wuxuu mas'uul ka yahay abuuridda jawi xasilooni amni iyo mid siyaasadeed oo ay ku qabsoomi karto doorasho wada ogol ah oo ka dhacda magaalada Garbaharey iyaga oo si dhow la shaqeynaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. guddigu wuxuu soo jeedinayaa min 2 xubnood ee jagada guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada Garbaharey iyaga oo la tashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada. guddiga waxaa lagu soo magacaabayaa muddo 3 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka ay madaxdu saxiixaan heshiiska. madaxweynaha dowladda Jubbaland ayaa soo magacaabaya xubnaha maamulka degmada Garbaharey ee ay soo gudbiyeen guddiyada dib u heshiisiintu si waafaqsan soo jeedintii 16 Febraayo ee guddigii farsamada ee Baydhabo. golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa guddiga dib u heshiisiinta in ay ku soo dhammaystiraan qorshaha xasilinta gobolka Gedo guud ahaan iyo tanjawiga qabsoomidda doorashada Garbaharey muddo 30 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa marka la magacaabo guddiga. dhinaca amniga doorashada Garbaharey goluhu wuxuu go'aamiyey in booliska AMISOM la geeyo magaalada Garbaharey si ay u hubiyaan amniga magaalada iyo in goobta ay ka dhacayso doorashadu. in guddiga dib u heshiisiinta iyo maamulka cusub ee ay soo magacowday Jubbaland ay ka soo tala bixiyaan kana shaqeeyaan sidii guddiga doorashada ergada iyo musharaxiinta loogu diyaarin lahaa ilaalo u gaar ah oo amnigooda ilaaliyo si loo helo amni la isku halayn karo muddada ay doorashadu socoto. goluhu wuxuu go'aamiyey in guddiga dib u heshiisiinta ay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka u soo gudbiyaan qorshaha iyo jadwalka gogosha nabadeynta gobolka Gedo iyo dhammaystirka dhismaha maamulka gobolka Gedo laguna hirgeliyo muddo 60 maalmood ah doorashada kadib. qodobka 4 amniga doorashada. golaha wadatashiga qaranku waxay go'aamiyeen in la dhiso guddi amni oo ka kooban 9 xubnood mas'uulna ka ah amniga doorashada uuna hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya xubnana ay ka yihiin taliyaasha booliiska federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo taliyaha booliiska AMISOM. in guddiga amnigu diyaariyo ciidamo u gaar ah ilaalinta goobaha ay ka dhacayso doorashada gaar ahaan goobaha lagu dooranayo kuraasta Somaliland guddoonka 2 aqal ee baarlamaanka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. golaha wadatashiga qaranku wuxuu farayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada amniga ee labada heer in aanay ku milmin faragelinna ku samaynin arrimaha siyaasadda iyo hirgelinta doorashada. in guddiga amniga doorashadu ay warbixin joogto ah siiyaan golaha wadatashiga qaranka si ay go'aan uga gaaraan habsami u socodka ama xallinta xaaladaha taagan ee doorashada la xiriira. qodobka 5 hirgelinta qoondada haweenka. goluhu wuxuu isku raacay iyadoo la tix raacayo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ee xaqiijinta qoondada haweenka ee 30% in la ilaaliyo qoondada haweenka ee 2 aqal. jadwalka qabsoomidda doorashada. golaha wadatashiga qaranka iyadoo la xiriirinayo dib u dhaca ku yimid waqtigii loo asteeyay qabsoomidda doorashada federaalka ee 2020-2021 wuxuu go'aamiyey in doorashada lagu dhammaystiro muddo 60 maalmood gudahood ah sida ku caddayd soo jeedintii heshiiskii ama arrintii farsamo ee magaalada Baydhabo lagu gaaray 16 Febraayo. in guddiga maamulka doorashada heer federaal ee FID ay soo saaraan jaangooyinta jadwalka guud ee hirgelinta doorashada oo ku dhisan muddada ku xusan xarafka in guddiga heer dowladaha xubnaha ka ah SID
ay diyaariyaan jadwal u gaar ah qabsoomidda doorashada dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka ah si waafaqsan jadwalka guddiga heer federaal. qodobka 7 jaangooyinta wada shaqaynta golaha wadatashiga qaranka. golaha wadatashiga qaranka ayaa ka mas'uul ah fulinta heshiiskan iyo ka shaqaynta amniga guud ee dalka iyo kan doorashooyinka. goluhu wuxuu go'aamiyey in ay yeeshaan kulamo joogto ah oo lagu hubinayo fulinta iyo habsami u socodka hannaanka qabsoomidda doorashada laguna xallinayo wixii cabasho ah ee ka dhasha hirgelinta doorashada. 8 qariidada dhammaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. goluhu wuxuu si qoto dheer uga wada hadlay go'aanna ka gaaray in la dejiyo qariidada qorshayaasha mudnaanta leh ee dhammaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyada oo la tixgeliyey in muddo 2 sano gudahood ah lagu dhammaystiro dhammaan qorshayaasha horetabinta leh. goluhu wuxuu go'aamiyey in ay si joogto ah uga wada shaqeeyaan hirgelinta qariidada dhammaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya ee ku lifaaqan heshiiskan. qodobka 9 mahadcelin. golaha wadatashiga qaranku wuxuu u mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya doorkiisii hogaamineed iyo fududeynta shirkan. goluhu wuxuu saamilayda siyaasadeed ururada bulshada rayidka ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed uga mahadcelinayaa doorkii ay ka qaateen gaarista heshiiskan iyo xallinta khilaafaadkii ka dhashay arrimaha doorashooyinka. goluhu wuxuu sidoo kale beesha caalamka uga mahadcelinayaa taageerada ay la garab joogaan dowladda Soomaaliya iyo sidii xal looga gaari lahaa khilaafka arrimaha doorashooyinka. waxaan markaa idin kormarayaa lifaaqa halkan la saxiixay ee quseeya arrimaha mustaqbalka insha Allah ama qariidada dhammaystirka dowladnimada Soomaaliya. si loo dhammaystiro dhismaha dowladnimada Soomaaliya ee ku dhisan hannaanka federaalka ah loogana gudbo caqabadaha soo noqnoqday ee khilaafka siyaasadeed waa in madaxda loo doorto hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan adkaynta midnimada iyo wadajirka dadka iyo dalka Soomaaliyeed sidoo kalena ay si midaysan uga shaqeeyaan xasilinta iyo adkaynta amniga guud ee dalka si dalku uu noqdo mid la jaan qaadi kara dunida inteeda kale. haddaba si loo gaaro mabaadi'da kor ku xusan goluhu wuxuu isku raacay hirgelinta qariidada qorshaha masiiriga ah ee mudnaanta u leh dowlad dhiska Soomaaliya sida ku cad shaxda hoose. shaxdu marka waxay ka kooban tahay qorshaha faahfaahinta muddada hirgelinta iyo cidda mas'uulka ka ah insha Allah tacaala. qodobka 1 dhammaystirka dastuurka federaalka ah. faahfaahintiisu waxay tahay in heshiis laga gaaro guddiga dib u eegista iyo geedi socodka dhammaystirka dib u eegista dastuurka, in la dhammaystiro qodobada farsamo ee ku xusan u dhiman arrimaha dastuurka, in heshiis laga gaaro qodobada siyaasiga ah ee lagu muransan yahay sida awoodaha iyo wada shaqaynta heerarka dowladda, qaybsiga khayraadka dalka, nidaamka cadaaladda iyo ilaalinta dastuurka. waqtiyadu way kala duwan yihiin laakiin 2 sano gudahood ayuu isaga oo dhan ku go'an yahay. kaasi marka waa qodobka 1. qodobka 2 dhammaystirka hannaanka dhismaha ciidanka iyo sugidda amniga dalka. in heshiis wadajir ah laga gaaro qaabka loo dhisayo ciidamada qaranka Soomaaliya, dib u eegisna lagu sameeyo heshiisyadii hore ee amniga. in dib loo qaabeeyo dhismaha ciidamada qaranka, qalabeeyo loona diyaariyo in ay la wareegaan mas'uuliyadda amniga qaranka. xoreynta iyo in dalka laga saaro kooxaha argagixisada ah. kaasina waa qodobka 2. qodobka 3 waa qadiyadda arrimaha Somaliland. in dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ay heshiis ka gaaraan hannaanka wada shaqayneed waa hannaanka wada hadalka arrimaha Somaliland. in lagu gudagalo wada hadallada Somaliland laguna dhammaystiro ilaa bisha August 2022. qodobka 4 maqaamka caasimadda Soomaaliya. in hay-adaha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay heshiis midaysan ka gaaraan maqaamka caasimadda dalka. dib u heshiisiinta. in dib u habayn lagu sameeyo guddiga dib u heshiisiinta qaranka
in la diyaariyo qorshe qaran oo dib u heshiisiineed iyo in la hirgeliyo barnaamijkaas qaran ee la diyaarin doono insha allah. qodobka 6 deeqaha iyo deyn cafinta in laga heshiiyo qaybsiga deeqaha iyo tubta deyn cafinta Soomaaliya. 7 hirgelinta doorashada hal qof iyo hal cod in dib loo eego heshiisna laga gaaro dhammaan shuruucda guddiyada iyo siyaasadaha hirgelinta doorashada qof iyo cod in la dhammaystiro geedi socodka qabsoomidda doorashada xisbiyada tirakoobka xuduudeynta dhaqaalaha iyo agabka hawshaasna waa in lagu qabtaa ugu dambeyn 2023 warmurtiyeedkan waxaa saxiixay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Sheekh Maxamed Islaam madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor madaxweynaha Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish waa mahadsantihiin.